Su'aasha kale, Assalaamu calaykum Ustaad Cabdirashiid. Magacaygu waa Xasan Cali oo jooga Germany. Waxaan kaaga mahadcelinayaa mar walba sida aad inoogu faa'iidayso. Mahadsanid. Waxaan qabaa laba su'aalood. Su'aasha koowaad, waxaan fahmi waayay sababta bani'aadamku aysan isku mid u ahayn dhanka difaaca jirka. Sababtoo ah waxaan maqlay dadka qaar difaacoodii ayaa adag, dadka qaarkoodna difaacoodii waa mid daciif ah. Su'aasheedii labaad, waxaa jira wadaadada qaar waxa ay sameeyaan in qof xanuunsan loo keeno wuuna ku akhriyo wadaadka Qur'aan, kadibna qofka waxaa laga xiraa labada faryar, kadibna waxaa lagu dhahaa jinni ama insi maxaad tahay. Kadibna qofku waa uu hadlaa, waxa uuna sheegaa waxa uu yahay jinni ama insi. Isla qofka ayaa hadlay, isla codkii ayaa qofka ka baxayo. Waa maxay Ustaad, waxaasi ma aanan fahmin. Jinniguse maxaa loo arki la'yahay? Sidee ayuuna u qaab eg yahay jinniga? Mahadsanid, iga soo jawaab biliis inta aanan arrimahani aanan cilmiga u lahayn aanan dembi ku gelin. Unugyada difaaca jirku waa dhiigga qofka. Dadkuse maadaama isku dhiig aysan ahayn, difaacoodu jirku isku mid ma wada noqon karo. Xitaa dadka qaarkood iyaga oo isku wada dhiiga haddana difaaca jirkoodu ma aha kuwo isku wada mid ah. Sababteeduna waa in jiinka unugyada difaaca jirka borotiinadu ay koodgareeyaan in ay kala duwan yihiin. Noole walba waxa uu leeyahay DNA u qaas ah. DNA-guna waxaa ku dhex jiro bangiga macluumaadka nolosha qofka oo dhan. DNA-giisii oo keliya ayaa qofka laga ogaan karaa, xitaa fisikaalka muuqaalkiisu marka laga soo tago qofka dabeecadihiisa. Dadkuse waxaa qaarkood qaarka kale ka duwa. Hooyada iyo canugeeda waa dheecaanka DNA-ga. Dadkuse kala duwanaanta DNA-gani ayaa sabab u noqda in difaaca jirkoodii iyo muuqaalkooduba inuu kala duwanaado. Qaybta labaad ee su'aasha khulaasadeedu, wadaadada dadka jinka ka saara waxa ay sameynayaan ma xaqiiq baa? Sida asalka ah, jinnigu waa wax jiro oo xaqiiq ah oo kitaabka Qur'aanka lagu sheegay, balse culimmadu waxay isku maandhaafeen jinnigu xaqiiqdii ma yahay mid lala hadli karo. Codka qofkase ma codka jinniga baa? Dad badan ayaa ku tagay in khuraafo ay tahay arrintani, balse culimmada rumaysan in jinniga dadka uu geli karo welibana uu dhibaatayn karo waxay u daliishadaan aayadda suuradda Al-Baqara, aladiina ya'kuluuna riba laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu alladii yataqabbaduhu shaytaanu min almas. Sida shaytaankuba dadka xaaraanta cuna uu u galo ayay leeyihiin, waxaa laga faa'iidayaa in sidoo kale shaytaankuna dadku u galo. Al-Imaam Axmed ibnu Xambal markii la weydiiyey dadka inkirsan in jinniga dadka uu galo, waxuu imaamku ku jawaabay, dadkaasi been ayay sheegayaan, jinniguse dadku waa uu galaa. Kitaabka Qur'aanku waxaa ku xusan sidoo kale qisooyinka Nebi Suleymaan calayhi salaam iyo jinniga. Jinniguse maadaama abuur ahaan uu ka duwan yahay bani'aadamku, suurtagal ma aha in qof walba uu arko, xitaa lama arki karo. Tekniigga wadaadada qaarkood jinku dadku ay uga saaraan waa qaab diinta aanan ku soo aroorin, dadkuna ay ka shakiyaan, waana qaab dadku ay ka shakiyaan. Maantana ganacsi ayaa loo bedelay, waana sababta wadaadada cilaajka dhexdoodu xitaa habka jinku dadku ay uga saaraan dhexdooda isugu khilaafsan yihiin. Si kooban, jinku waa mid xaqiiqa ah, qofkuna jinku waa uu geli karaa sida daliilka sunnada iyo Qur'aanka laga fahmayo, balse qofka xaaladaha uu hadlayo ma isaga ayaa korkiisii jinni uu ka dhex hadlaya ama waa un isla qofkii oo miyirka ka tegay? Waa su'aal weli jawaab aanan loo hayn.